imikadaaba guddoonsiye makiinada ugu horeysa inan la yidhaahdo Amaal Nuur Cumar oo gacanta ka naafa ah. Thank you. makiinadaadu waa taas waa la hooyan doontaa maanta soo wax lay guddoonsiiyay makiinadii ma sha Allah tabarakallah haweeneyda aqoonta lihi waa haweeney adag akhris oo ay canab ka joogto canab anagu waxaan isku baranay dalka Canada dhowr qaybood ba maanta qalin jabinaya waxa qalin jabinaya 550 dumar ah oo ganacsato ah suuqa waaheen ka ganacsada oo u baahnaa in la baro sidii wax loo qorayo ee loo akhriyay barnaamijkaas oo Telesom Academy ay nala collaboration nagula tahay badeen nagula partner nagula tahay oo iyaguna laftarkooda markaan u dhameeyno hablaha maanta qalin jabinay shahaadooyinkoodii qaatay halka ka sii wadi doona oo bari doona digital literacy amba farsamadii telefoonkooda ay u isticmaal lahaayeen iyo computerka dumarka iyagoo dhinacna wax ka iibinaya dhinacna soo cararayay waxbarashada ka faa'iideystay waxaan leeyahay aad baad u mahadsantiin barnaamijkan akhri saad ogtiin waa hay'ad yaro weyn waana hay'adda weyneed 10 jirsanaysa waana hay'ad yaro ku nool waxay dadku siiyaan iyo waxay ummad aaminsan inan amba hooyo wax baratay isbedel weyn bay keenaysaa weeyaan oo sanad kasta is abaabula oo lacagta iska soo gura oo yiraahdo waxaan doonayaa dumarka iyagu inay adduunka la socdaan la talaabsadaan oo wax bartaan marka dadka mid kamidii waxa weeye waxa ku gargaaray especially marketkaas waxa deeqda bixiyay oo ku tabarucay wasiir hore Cismaan Abdillaahi Saxardiid Cadaani hallo sacabiya please hadday dhinaca kale vocational training ay noqoto maanta waxaa noo qalin jabinaya 41 hablood oo markii horena shahaadooyin literacy-ga numeracy-ga qaatay oo markii dambana aan u raacinay farsamada gacanta dawaarka iyadna diidayna magaceeda la sheego ba iyada laftirkeedu ay ku tabarucday 10 makiinadood oo dharka ay ku toshaan markaas intaana waan u ducaynaynaa loo duceeyo si gaar ahaanana waxaan ay jecelahay inay inantaasi oo tiri imikadaaba guddoonsiye makiinada ugu horeysa inan la yidhaahdo Amaal Nuur Cumar oo gacanta ka naafa ah. Thank you. makiinadaadu waa taas waa la hooyan doontaa maanta inta kalena waanu insha Allah sagaalka kalena anaka xafiiskaanu ku bixin doonaa laba team baa jirto xagga dambe fadhiya oo iyaga laftarkoodu ka faa'iideysay fursadii dahabshiil aw siiyay microfinance-ka micro dahab dumarkaas oo sanadkii dhameeyay oo ka faa'iideystay oo ajaladeeda daawo doontiin waa kan inala joogayna kii microfinance team-ka lead-ka ahaa maanta Cabdi Baasid isaga noo macnay doona isagana qoladii hore ina de waa kole uu hambalyeynaya qolooyin dambana opportunity uu furaya soo maaha then waxa kaloo halkan nala jooga we invest team oo iyaga laftarkoodu aan awood badan galiyo dumarka waxbarashadooda iyo ay u opportunity iyo shaqooyin u abuuraan ambada ganacsi fursado ganacsi ay u abuuraan ayaa iyaga laftarkooda jiro aad u dadaalo halka ka muuqda baaniyerkoodii hablahaas oo iyaguna way fiicanta kuloo marka hablaha wax qabanaya dumar wax qabanaya leeyahay waxaan noqdaa excited markaas ma sha Allah teamkaasna waxaan leeyahay baliyo aad baad u mahadsantiintaan nala gargaartaan dumarka akhriyaan soo aan doonaynaa inaan meel gaarsiino marka we invest iyaga laftarkooda 7 dumara oo ay maalgeliyeen ba iyaguna maanta halkan nala joogo nala faraxsan so thank you we invest dhammaantiin waad mahadsantihiin aan u mahadnaqayaa ugu horeyn akhris oo ay canab ka joogto canab anagu waxaan isku baranay dalka Canada caasimadiisa Ottawa xaflad la mid ah oo ay qabatay baan ka qayb galay tanawateedii labaad ee wadanka ka qayb galeen isku aragnay farxad gooniye ay tahay waan uga mahad celinayaa labada jeer bay soo casuuntayba runtii we invest waynu u mahadnaqaynaa iyo maamulka haweenka ee garab taagan
runtii haweenwahooda waynu mahadnaqaynaa iyagana runaantii dumarkan maanta qalin jabinaya iyo hablaha qalin jabinaya ee waxbartayna waxaan leeyahay sii wada waxbarashada dadaalka halkaa ka sii wada haniyad jabina maalinba maalinta ka dambaysa waxbaad ku dari doontaan Soomaalidu waxay ku maamahdaa waxay yiraahdeen subax iyo sadarkeebaa badan marka waxa la yiri subaxa badan sida awgeed waxa lagu leeyahay hadaad maalin barato alif barina aad barato ba sahan damana taabaad baran maalinta u dambaysana waad dhamaynu sidaas ma quraankana ku dhamay doonta nimca Cabdinuur waxaan kamid ahay ardayda maanta qalin jabinaysa farsamada gacanta dawaarka ka qalin jabinaysa aad iyo aad bay mahadsan yihiin maxay tahay mas'uuliyiinta maamulayaasha macallimiinta intaba waan mahad celinaynaa waxaan kale ahay qoladii ganacsiga ee 7 qof ee hay'adda ay maalgelinta siisay ayaan ahay ganacsiga way ku mahadsan yihiin sidee noo maalgeliyeen sidee noo gacan qabteen maxay ahayd toleyminkana aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin mar labaad iyo mar saddexaad bayna loogu celiyo oo maxay tahay halkaan ka sii wadno isatay akhrisin shahaadadeedii maxaan idhaahdaa shahaadada dawaarka iyo ganacsigii waxaan ku mahadinayaa in maamulkayagii dhammaan iyo matasheerfka joogta siday u dhan yihiin iyo ardayda dhammaanteed ayaan ku mahadnaqayaa maasha Allah tabaarakallah iyada iyo madaxdeedaba anagoon aqoon lahayn waxba garanaynba waxna bareen markii dambana waxay noogu dareen xifradaha aan maxay tahay dawaarka bari ku shaqaysanayno maanta taasoo wax la guddoonsiiyay makiinadii maasha Allah tabaarakallah inanta soo bixisayna ilaahay iyadana jasaay qarbadan Allah siiyo madaxdeedana insha Allah hadii la yiraahdo wax ka badanna waan ka sugaynaa intana wayna bareen waana ku mahadsan yihiin ay canab ugu horeyso iyo macallimiintayada maasha Allah tabaarakallah anigu waxaan ka mid ahay boardka we invest boardkiisa waana ku dhiirigelinaynaa waxaan in la isku xiro u baahan waxa weeyaan muxuu ahayd wax qoristii wax akhristii iyo maalgelintii iyo muxuu ahayd wasaaradii waxbarashada muxuu ahayd wasaaradii maalgelinta ee ganacsiga wax badan in la isku xiro ayay ku qurux badan tahay marka waxaan idin rajaynayaa hambaliyo waxaan rajaynaynaa sida la sheegay inta dambe ee muxuu ahayd hadda soo qalin jabisay waxaad ka koobantiin xaafadii Hargeysa oo dhan waliba IDB-yada waxaan idinku dhiirigelinayaa akhrin la'aantu waa aqoon la'aantu waxa weeye waa indhala'aan inaad maanta mar haddaad idinkoo 55 qof aad muxuu ahayd maanta qalin jabiseen oo waxna akhri kartaan waxna qori kartaan inaad raadisaan saa ganacsiga u sii kordhin lahaydeen inaad ka fikirtaan marka waxa weeyaan waa idinku hambalyeynayna waa idinku soo dhaweynaynaa waxaan halkan uga mahad celinayaa canab iyo tiimkeeda runtii sida qiimaha iyo qaayaha le intay Canada halka inooga timaado maalin walba albaabada ku qaraacdo ee jeclaysatay hooyooyinka maanta Hargeysa degan inay wax bartaan waa wax aad iyo aad loogu mahadiyo maran waxaan garanayaa xasuusta aan ka shaqayn jiray waxbarashadan oo kale hooyaan ku wadi maxaad ka faa'iiday waxbarashadii qoraalka iyo akhriska waxay tiri waxaan ka faa'iiday buuga inaan kaygo hadduu doono uu isoo foorarin jiray markaasaan saa fooraro qabtaa masiraada ma buuxisay saha markii aan Soomaaliga xisaabtii bartay tiri ayaan waxaan bartay inaan buugii toosin karayo wasan wariyaaha buugu toosin yahay ma bacdiina maad qori xuruftiina maad qori manaad buuxin marka qofku markuu wax barto wax badan baa noloshiisa iska bedelaya wax badan buu fahmayaa ubadkiisa buu la xisaabtamayaa ganacsigiisa buu hagaajinayaa dhaqaalihiisa baa kor u kacaya maskaxdiisa baa hagaagaysa bulsho kale iyo dad kale kugu xidhaysa maanta inala joogto aasaasii canab aan mar labaad iyo mar saddexaad ba aad ugu mahadnaqayo maadaama ay shaqo aan anagu qaban lahayn ayagu dusha u riteen maadaama dadkan maanta meesha jooga ay yihiin badankoodu dad ka socda IDBs-ka ama barakacayaasha ku yaala magaalada Hargeysa dadkaasoo badanka ay wasaaraddeedu line ministry la tahay sidoo kalena ururkana uu yahay ururada aanu badanka ka wada shaqeyno arrimahaas mar labaad waxaan maanta halkan u joognaa inaynu u hambalyeeno hooyooyinkaas maanta ka qalin jabinaya dhowrka xirfadooda kala duwan ay ugu horeyso akhriska iyo qoraalka oo 55 kamid ay maanta ka qalin jabinayaan hooyooyinkaas aan ognahay kulay duruufaha ay ku shaqeeyaan iyagoo kulay suuqii iyagoo jooga haddana ay dhinacna wax ka baranayeen waxaan leeyahay aad baad u dadaasheen hambaliyo baan leeyahay maanta waxaanu joognaa farxadaasi inaynu maamooyinkaas iyo hablahaasi aynu ku soo dhaweynayno barnaamijka muddada kooban socday ee maanta aynu uga fadhino qalin jabintii waxay ahayd muddo yar oo kooban oo aan ka badnayn 5 bilood ka hor inaynu
hawshan ka wada hadlaynay iyo hirgelinteeda hawl kasta oo la aasaaso laga fikiro loo fadhiisto isla markaana ficil loo bedeliyo waxaa ka imanaya qurux tan oo kala amaanta ah ayaa ka imanaysa run ahaantiina dhiirigelintu waxay tahay maadaama hooyooyinkaasi iyo hablahaasi ay ku jiraan ganacsi kooban ay mashquulsan yihiin family ay leeyihiin caruur ay korinayaan isla markaana diyaar u yihiin inay wax bartaan inaynu inagu awood siina gaara oo aynu u fududayno marka anagu Telesomalia dhimahaan way kooban tahay inta yareenu kaga qayb qaadanay oo waxaan u fududaynay kalaasyadii ay ku dhigan lahaayeen oo xarumahooda u dhow si iyagoo shaqadooda ku jira waqtiyada ay jaaniska leeyihiin ay xarunta ugu dhow ay u tagaan ay waxbarashada ku qaataan maanta mar haddii aad qaadateen ama dhamaysateen qoristii iyo akhristii waxa kale oo aad u muhiim ah inaynu ku darno sidee baa loo isticmaalayaa digital money-ga lacagayowga electronic ah sidee baa looga faa'iideysanaya oo iyaguna qofkii noqday nolol maalmeedkiisii daily-ga ahaa run ahaantii markii aanu eegaynay caseski dhacayay ee dadka ganacsiga yaryar haysta ay la kulmayeen ee aan markaa waxna qorin akhrinna waxa ay la kulmayeen dhibaatooyin waaweyn oo ah in lagu dhaco tiknoolajiyada iyagoo looga faa'iideysanayo maadaama ay awood u lahayn inay akhri karaan lacagayowga digitalka ah Telesomalia dhimahaan mas'uuliyad baan fuushay maanta aanu qaadanay oo nagu soo wareejiyeen akhri madris kaasi oo ah inaanu annaguna hawshii qaybtii ka dhinayd aanu dhamaystirno sida ugu dhaqsaha badanna hawshaasi waan u dhamaystiraynaa haddii Allah biidnillah markasta teamka akhri oo ay ugu horeyso canab ugu horeyso runtii waxay qabteen shaqo weyn oo balaaran bay qabteen oo waxaan buuxiyeen kaalin mugle bay buuxiyeen oo bulshadu ay aad iyo aad baahi u qabtay waxay mudan yihiin in la bogaadiyo waxay mudan yihiin garab istaag waxay mudan yihiin in waxtar qof kasta wixii uu kari karayo karaankiisa ka geysto kii ka geysan karaya waxtar muuqda iyo mid aan muuqanba runtii marka dadkeena bulshadeena la eego bulshadeena inta ugu badan waa haweenkaasi waa dadka ugu nugul weeyaan bulshada ugu nugul ee marginalized groups ka leeyahay dadkaasi waxay u baahan yihiin taakule u baahan yihiin waxay u baahan yihiin taageero u baahan yihiin waxay u baahan yihiin daryeel gaar ah iyo dadaal in la siiyo si ay horumar muuqda u gaaraan marka laga hadlayo akhriska iyo qoraalka marka laga hadlayo هذا شرارة ما قلنا تلسيه قفك آخر قرال كلسيه قفك هوين كلسيه ويكقي ببلانت هاي لبك مك لما القلنيو ويا هوين لبك وحلقة بقى إني سجى أي أنت بدن كوكهم ناكرتوا وحاو برتي وحبرشي سيو حياو برتي كوكهم ناكرتوا لكن هوينكو وحي أي aad baa laygu yaqaanaa hablaha iyo dumarka iyo arrimaha ku raaxaystaba ma sha Allah marka ugu horeysa hambaliyo waxa farxad aan dareemayo dumarnimo ah hooyanimo ah mas'uul kuma tala dawladda inaanu aad u horumarino arrimaha dumarka in maanta guushan aan idinkala soo qayb galnay idinka oo maanta qalin jabinaya oo maanta ma sha Allah ka soo bilaabay basic wax badan farxad gaar ah inoo tahay waxaan aad u hambaliyeynayaa dumarka dadaalka muujiyay hablaha dadaalka muujiyay inay maanta soo gaaraan inay halka yimaadaan oo la yiraahdo maanta waa graduation koodii aad baan idin hambaliyeynayaa hambaliyo waxay laygu wargeliyay in ay tirada literacy-ga ama qorniinka iyo akhriska iyo muxuu ahaa xisaabta ay barteen ay yihiin 15 dumar ah 41 ay barteen sida arrimaha dawaarka iyo vocational trainings kan ay qaateen waa farxad
waan jecelahay inay inamaduna wax bartaan laakiin aniga muhiimad gaar ah waxay iga saaran tahay markaan arko dumarka waxa la yiraahdaa when you educate a girl you educate the whole nation inaan markaad wax bartid bulshada iyo caalamka oo dhan baad wax bartay marka hooyada ama inanta reerkeedii dib ugu noqonaysaa iyadii ilmihii bay fartii baraysaa haweeneyda aqoonta lihi waa haweeney adag waa haweeney tiir nolosheeda kamida wax ka qabatay haweenku inay wax bartaana waxay dantu ugu jirtaaba Soomaaliland oo dhan farxad bay anaga noo tahay inaad halka gaadheen waanaga waqtigii baa idin xiraya waxa tiin hooyooyin ama hablada dan yaraho reer u badan tihiin dan la soo baxayo iyo maxaa la yiraahdaa nolol maalmeedkii markay hooyadu suuqa fadhido oo ay tamaandhe iibinayso waxa laga yaabaa inaan waqti kale u sii helin bayna wax sii barato laakiin waxaan idinku boorinayaa tii waqti heshay xataa midna ha noqotee wax barasho inaad sii wadaan waxaan halkan aad iyo aad iyagana aan ugu mahad celinayaa hablaha qurba joogta ee xooga saaray inuu mashruucan hirgalo aad hablaha dibadaha joogaan u mahadnaqayaa canab oo aan wali kulmin aan si halka ka dhaxarkayo waa taas aad baan ku mahadinaynaa horumarka wadanka ku soo kordhiseen